wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa maanta kulan lagaga hadlayay tayeynta waxbarashada iyo fididda waxbarashada la yeeshay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal iyo guddida waxbarashada degmada Boorama. Kulanka ka qabsoomay xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa waxa ku wehelinayay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Somaliland agaasimo waaxidyo ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland. ugu horeyn waxa kulanka ka hadlay Mudane Maxamed Yuusuf Jaamac gudoomiyaha guddida si loo dardargeliyo horumarinta waxbarashada degmada Boorama. marka waxa weeye guddigu markii horeysayba waxay gudagaleen in ay sameeyaan guddigu isqaybiyaan oo ay la dhiso maadaama oo ay jirto saddex qodob ay guddigu ay ka duulayaan waxqabadkooda waa fidinta waxbarashada tayeynta waxbarashada iyo maamul wadaagga. saddexdaas guddi ayaa laga dhisay iyagoo guddigu ka kooban 9 xubnood waxa loo qaybiyay 3 xubnoodba in ay qayb mas'uul ka noqdaan. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeeke Ismaan iyo waxbarashadu waxay u baahan tahay waa dabagal iyo toosin iyo tilmaamid ka gobol ahaan marka waliba degmada Boorama waxa weeyaan report kana ku siinayo waaxda ugu badan ee soo xolba shaqeysay baska halka yaalo wasaaradda waxbarashadu gaar ahaan gobolka shaqaalahaygu ay iibsadeen oo ka shaqeeyna subax walba iskuul walba la dabagalo waxa kale oo horumarka horta dan ku horeeyay dugsiga aadan saaqo kala xusamayso waxa lab science wasaaradda contribution-keegu ay bixisay laakiin waxa wax ka beddelaya tayada aynu markaa aynu raadinayno waxa kale oo noo soo baxday inaynu u sameeyno kedis ama tartan aqooneedka markaanu sameeyno waxa la qiimeynay maxay ka simeeyeen oo lagu qiimeyn karaa maxay ku tartami karaan fidinta hada nidaamna sanadka waxa dugsiyada ka qayb galay dugsi aanu tagnay Bakiyo guuleed walow leeraa yaa sanad dugsiyeedka nagu cusbaa kulay wasiir ku xigeenka soo arkay aadna ay u dhisteen oo community-ga ay dhisteen dugsiga carra cado sanad dugsiyeedkan isna ku soo biiray carra qoloob aynu dhismay ka qayb qaadanay dugsi leeraa bisin la community-ga ay dhisteen intaas waxay ka qayb qaadanayaan hulka oo isna dhismiisu oo socdo waa fidintii waxbarashada. intaasi kadib waxa halkaasi ka hadlay agaasimo waaxidyo ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Somaliland. macalinka iyo maamulka iyo guddida imiga waxbarashada la sameeyay waa inay dadaal aad u badan geliyaan inay tayada waxbarashada kor u soo kacdo. waxaynu u baahanay inaynu xoojino annaguna mas'uuliyadda taydinkana ay aad nooga sii hooseysiin ardayda in manhajkii loo dhameeyay iyo sida loogu dhameeyay labadaba iyo in caruurta base hoose ka soo dhisno oo runtii waqtiga imtixaanaadka ardaydu waxay ka iska eegaano kaliya 8ka iyo form 4ka inaynu ku dhiirigelino macallimiintana inay imtixaanaadka ardayda bilihii soo nooleeyaan ila tayo waxbarashada meesha ka rabnaa oo ardayga la dagaalanka qisku ka soo bilaabmaba xagga hoose. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno waxana uu yidhi degmada ee waqtiga horena u geliyay horumarinta waxbarashada aynu arkayno iyo dhowr bilood jiray hadana halkay marayaan aynu arkayno Somaliland inteeda kalena degmooyinka la kaga dayan doonaan Boorama iyo Gabiile iyadana runtii kuwa kale waa laga yaabaa inaan ku aragno iyaguna waxyaabo kale sameeyeen laakiin wax curinta sameeyay ujeedadii guddiga aynu sameeyna kamid ahayd in degmooyinku ay tartamaan oo marba dheeraysa aynu inteena kalena ku dayano waayo curintu dadkay ku dhex jirtaa agaas madaxda iyo shaqaalaha waxbarashada ee gobolka iyo agaasimayaasha aanu soconay iyagana mahadnaq xogta ay nasiiyeen laakiin waxaan doonayaa inaan ku soo koobo maanta halka waa inaan wuxuu ka balqaado library-ga iyo farsamada gacantaba sanadka waa inaynu Cabdirsaaq Cumar Macad Awliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorama.